mihii u dambeeyay waxaa jiray fanaaniin ku sii qulqulaya magaalada Muqdisho ayagoo xukuumadda Soomaaliland arrintaasi aanay dabcan ogolayn daaha gaas waa abwaanada waaweyn ee Soomaaliland in arrintan maxaa keenaya in fanaaniinta reer Soomaaliland ay dhinaca magaalada Muqdisho ay dabcan u tagaan inay ka soo heesaan oo ay tagaan batilka saar waxa weeye horta fanaanku iyo halabuurka dawladdu iyaga ka faa'iideysta iyaga dalka jeclaysiiya waa arrin aan dawladdu waliba aad uga warhayn waa qulqul ku yimi fankeeni way tageen way tagayaan kuwa dambana way anbabaxayaan annaga iyagii kooxaha guddoomiyaasha ka ahayn babaqsanba badrow sabab tahay fanaankii sabab la sabab u joojin kartaa ma jirto ma qancin karaysid fanaanku awalba dhaqaale kuma qabin dalka manayna weydiin jirin fanaanku waa waxa qura ee maanta aan qabyaalad ku mashquulsanayn ee reer ka sheekayn dadka jahayn karaya haddii uu jahayntiisa jaanis u waado iyo hobbigan fankiisa ku jira oo uu xornimo u heesi kari waado oo gobolladii aanu wacyigelin iyo barnaamij ka qaban karayn dee fanaan oo hoteeladii wakhtigaad aragto 11 la soo xidhayo oo waxay dadkooda ka heli jireen intay u madadaaliyaan bay lacag yar ka heli jireen oo loo soo gali jiray 11 bay xidhan yihiin hoteeladii aan loo ogolayn marka siyaasad kala la ciyaaraya dawladdaasi waxay awoodda saartay oo ogaatay waxaynu garan weynay bay ogaatay xamar waxay ogaatay fanaanku waxa qura ee laga faa'iideysan karo ee dadka isdhexgelin kara inuu yahay waayo waxaynu ognahay xamar Soomaaliland dawladda Muqdisho iyo Soomaaliland waxa qura ka midaysan waa heesaha waa ka midaysan heesta halka ku sameeyay xamar waa laga dhageystaa ka sameeyay tan laga dhageystaa dadkiina markay isku dad yihiin oo isku af yihiin fankana waa looga faa'iideysan karaa waa chance dawladdeenu dayacday inay fanaaniinteeda ka faa'iideysto inay wax gashato inay meelo ay ku midadaashaan u samayso waadna arki doontaa wallahi maca dadka raacaya ka fanaaniintu meel shii kasta ee laga jecel yahay xorku yahay fanaanku tagay fanaaniintu de xidiga geeso qulan ma fanaaniin kooxo kasta ku jira way tageen dabcan way ugu caansan yihiin xidiga geesko waa aragtay de qaar ka mid way ka tageen xidigaha geesku Soomaaliland way jecel yihiin waxaad ogtay inay xidiga geesku yihiin koox Soomaaliland waxaynu maanta qaadno iyo waxaynu wacyigelin haysanaba iyaga sameeya laakiin fanaankii maamulka xidigaha geesku ma rabaan fanaaniintooda xamar tagaan laakiin fanaankii ma la kantarool kara badrow markaas fanaankii jahayn karay suuragal wax ana uu ka hadlayo fanaankii ee uu show ku soo qabsanayo xamar ee lagu soo dhaweynayo ee uu wax ka soo helayo oo wasiirro imanayaan ka hor imanayaan kana wasiirdaaya aanu meel barnaamij ku qabsan karayn xidigaad sheegtay anaguna ma joojin karo xidigana ma joojin karaan kuwa iyaga way tagayaan oo ma hay karayno anagu laakiin xamar dama jeclin wala Soomaaliland baanu jecelahay waana la og yahay waanu joogaynaa intaanu joogi karayno waanu ka hadlaynaa taanu mucaarad hay'adaanu saxaynaa ku dhex mucaaradayna oo wax ku toostinaynaa laakiin fankii tabta aad sheegtay badrow qulqul buu ku jira maanta macaan hilaac waa dhiirigelinta inaga la inagu jabinaya xil baa looga magacaabay xamar inana xamar buu tago inaga xidhnay eriyanay samad garan waa chance laga faa'iideystay marka nimcaan hilaac oo kala soo hadal qaatay xidigaha geesku hore ugu jiri jiray aad Soomaaliya xilba u magacawday culays caankeeya ayuu dabcan ku hayn karaa fanaaniinta Soomaaliland wuxuu ku hayn karaa waa nin Soomaaliland u dhashay kuwana garanaya xil haya dhaqaale loogu dhiibay ku doono soo casuumaya ku doono la hadlaya xamar buu tagay uu inoo yimi sagiyaabiba wala xira ma la yaaho maxaa ka macnaa haduu tagay ma la soo dhaweeyo fanaankeenniba xamar buu ka soo heestay cadaadis baa la saaray dawuu tago waa halka xilka qabta dadka maskax ahaan baa dal qabsaday xoog lagu ma qabsan karo wana xilayo waa agaasime inuu anaga nakaxayaan uga baqaynaa burco way xidheen oo xool lagu ma qaban karo iyada hargeysa ugu dhaweeyada dagaal bay ku wadaan nimankaasi khabriga kama hadlaan intay fanka ka hadlaan ka quraanku sheegay baan kama hadlaan laakiin waxay la dagaalamaan suugaanta iyo fanka waxay kula dagaalamayaan waxay og yihiin waxa qura ee dhalinyarta kasban karta ee dadka jahan karta inay suugaanta tahay markii qura aanu xalayn waxay madaxweyne qura oo suugaanyahana baa dalka qabsaday baan islahay Soomaal garan inta waxaanu dagaalamayna anigu ragii aad ugu walaaleeyay musabix lacagna kuma haysto xilla kuma haysto fankii qura ugu soo dagaalamay buu hantaraabay oo 11 habeenimo ku soo koobay ninkii aan islaha si silaayaba la qatay 11 habeenimo buu
fanaaniinteena laftiina ayaa la leeyahay ayaga laftoodii baa kala qaybsan oo kooxa kalaa oo dee sababaha ay dowladduna wax ugu qaban lahday waxa weeyaan ayagiibaa aad u fara badan maad dhinac iskugu ururtaan oo aad hal kooxoo tayaala soo saartaan taas maan eedda idinku lahayn ma nihin inaannu kooxa noqonno oo tartanno oo dadku lagu murmaan waa waxa dowladda iyo dalkuba u baahan yihiin waa mashquulka dadka koox ma wada qaban karo laakiin iyagaa islehe isku mid baanu dhammaantayo haddaanu halabuurnahay haddaanu fanaaninahay waanu midaysanay waa been waxaa laga sheekaynaya maxaad fariinta u dambaysaa ay tahay ee aad dirayso xukuumadda in fanka la koriyo iyo weliba fariinta kale aad raacsanayso dowladda waxaan leeyahay dalku wacyigelin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay madaxweynuhu cid walba wuu la shiraa cid walba tali uu weydiiyaa cid walba arrin buu weydiiyaa yaraysiga uu yaraysanayo maanta fankiisa cidda kale uga faa'iidaysanayso in madaxweynuhu iska daya isagaa yaqaana halabuurka saamayntiisa maalin kastoo madaxweynuhu khudbad qaato inta qolow ka naftaleeyo qaataa waxa weeye ama suugaan horuu soo qaataa wuu ogyahay wuxuu fan ku qabto ka faa'iidayso caqabadda qolay somalilan maanta baqintaynu ka qabnaa bedro waa ceelif weyn waxaan leeyahay dadkaa walaalaha wada dhashay cid isu kidhnaataa ma jirto nin og markuu dhinto inuu helunaar yahay oo naar ku sii socdaana heedhe waa mushkilad waxaan leenahay ilaahay idii abuurtay ka baqa iska daaya colaadda